وأيام بأيام بآخر ثبان حقيقة dhacdadani way ka ilmaysiin doontaa waa wiil Soomaaliyeed oo markii meherkiisii laga soo dareeray galay shil gaari deegaanka harta sheekha ee Itoobiya isla markaana geeriyooday waa dhacdo maqalkeedu xanuun badan yahay haddaba barnaamijkan ayaan ku faahfaahin doonaa qaabkii uu shilkaasi u dhacay iyo xaaladda ay hadda ku sugan tahay gabadhii uu mehersaday marxuum Axmed Dheeg Cismaan haddaba intaanan u guda galin barnaamijka muuqaalkan like-saar like-tu waxay noo tahay dardar iyo dhiirigelin iyo inuu muuqaalkani meel fog gaaro adigana wax dhiba kuguma hayso haddaba adoo raaliya fadlan muuqaalka like noo saar siina share garo asxaabtaada la wadaag mahadsanida وأيام بأيام بآخر ثبان من آن لهان دكتور لوغيلا maalmaha dunidu waa kuwa dhalanteed ah qofna ma oga xilliga uu dhiman doono kaliya uun Ilaahay baa og balse wax xaqiiqa inaan dhamaanteen aanan dunidan ku waarayn oo aan dhiman doono waxay ahayd maalin farxadeed waana meherka Axmed Dheeg Cismaan iyo Amran Maxamed Maxamuud dadka oo dhan waa ay faraxsan yihiin Axmed iyo Amran oo ahaa lamaane isjecel isna doortay ayaa la isu meheriyay markii lamaanaha la isu meheriyay quraac macaan oo meherka loogu talagalay ayaa la cunay lacagtii Sooriyada ahaydna odayaashii ayaa kala qaybsaday Axmed isagoo faraxsan ayuu meeshii ka tagay balse daqiiqad kama soo wareegin markuu shil gaari galay oo xanuun badan kuna galay deegaanka harta sheekha ee dowlad deegaanka Soomaalida waxay geeri kadisa ah oo xanuujisay qulubta dadkii aqoona Axmed iyo xaaskiisii uu maanta mehersaday ee Amran balse wax walba waa qoraal iyo qadar alle Axmed oo ahaa nin dhalinyaro ah oo dadaal badan isla markaana go'aansaday inuu nolol qurux badan kula noolaado gaclisadiisa Amran ayaa waqtigiisu intaa ku ekaa Amran ayaa hadda ku jira xaalad adag oo kooma ayay ku jirtaa maqalka geerida Axmed ayaa ku noqday fajaciso waxay ahayd mootul qafla inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun haddaba daawade inagu walaalkeen waxaan u awoodnaa waa duco oo kaliya fadlan hala dhaafin ducada muuqaalkana share garee si uu gaaro dad badan oo u duceeya waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan